بسم الله magacaygu waa injineer Shaafi Axmed maareeyay hore maamulka magaalada Jijjiga guud ahaan waxaan salaamayaa shacabka caasimadda waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo Jijjiga qurux badan oo horumartay ra'yiga ugu weyn ee magaalada tan ku hogaaminayna wuxuu ahaa Jijjiga 10 sano soo socota waxay noqon doontaa Dubayda Geeska Afrika oo runtii ra'yi aad u fog xoog xeelad iyo xigmad badan u baahan ahaa كاين لجارو بان رجع في عنك قبل إن شاء الله وحن معمول كمجال جيجي وهجامين تيدا صار كم يدها أفرتي سنة لصور ضعفي يسبدل كبعد مركي مجال ده نيمين ينهونتي وحن ناقش إسنا وحيابا جارين حوك صاروا يسبدل في عنا عن كصمينه أنا قلت راعينا عبشوين كشعب كسر بحي بودهان يسبدل كبعد ويجوه الرئيسي عقبدا كجيرة دنك كابياش شهر مرنات ويجوه الرئيين arrimaha jidadka biyaha iyo leydka anagoo taa ka duulayna runtii waxaan oran karaa waxaan ku guuleysanay inaan wax fiican ka qabanno arinta leydka iyo jidadka waxaan fulinay 28.5 kilomitir oo jidada waxa jidadka ka barakacay oo aan maaraynay dad ka badan 778 qoys oo runtii iyaguna nacaawiyay jidadkaasi waa tiraahaan 12 jid bay ahaayeen shan kamida waan dhamaystiray shacabkuna oo isticmaalayaan magaaladan waa laga dareemayaa isbedelkeeda toddoba kamida inay isbedel iyo xilli wanaagsan bay ku jiraan hogaaminta cusubna inay dhamaystirto ayaan rajo fiican ka qabnaa in ka badan 45 kilomitir oo leydhan magaalada waan geliyay intaan aan xafiiska kan joogay taana waxaan u arkay shaqooyin fiican oo qabanay arinta muhiimka ah ee qaylada ugu badan ee magaalada ka jirtay waxay arinta iska qabsiga dadka magaalada Jijjiga markaan imanaynay waxa ka jiray iska qabsi aad u badan oo dhinacyo badan la xiriira oo dadku inay 3 4 2 isku wada haystaan maanta laakiin shacabka magaalada Jijjiga isma haystaan xeelad awood farsamo iyo xigmad aan isticmaalay waxaan xalinay caqabadaha waaweyn ee dhanka iska qabsiga dadka ka jiray oo maanta bulshada caasimadda runtii way kala bogsatay waxa isku haysto badan ma jiro taana ma ahayn tu ay hogaaminta hadda joogta ama isbedelku abuuray laakiin waxay ahayd dhibaato isbedel ku dhaxlay لكن كنت أن كقولي سني بقول كيا بقول إن عن حلنا أرنت أوقف عن إن لا هي مجالات وضغطك تبحوين أرنت سمينتا أما داعين تأدي كذا مجالات جيجا مرخان يميني أدي كذا وحلقات قاعدني هل حفيز أو حفيز كأدي أنت مجالات ما أنت أدي كذا وحلقات قاعدني على بعضن حافظات المجالات يأفر مجال وسط وسيب وحده بحياة أدي كذا قاعد إلى تطبع تحسون إسلام مستقبل كوا حلقات أي magaalada tan aad uga tagtay in badan aan ku dagaalamay runtii ahayd guud ahaan shacabka caasimadda waxaan leenahay in garab istaaga dawladda waxaad gaari doontaan insha Allah isbedel wanaagsan oo maanta halka joogtaan meel ka qurux badan ayaa la gaari doonaa waxaan rajaynayaa inaan arki doono Jijjiga qurux badan oo noqoto 10 sano soo socota Dubayda Geeska Afrika waxaad ogtiin inaan sameeynay qorshahaaga 10 sano ee soo socda kaas ودميسترياي مدحفسات كعصب كوريجي قرشهاجها هذه سيد لوجو طلع قال له هرجليان قرشها طبعا كسنة عاصمة وحويان رنتي واحد نقاني سيد دبي الجيس كأفريقيا إنه نقط سعد وشجع يا قرشو ساسو كلا ساكو هنوريجي لبيه طبعا مشروع والمجالات اللي ينكسعدوا ووي قاسون ربي مسؤول كعصبين وسيد لوجو طلع قال يدا نغوصي أم بقاضه واحد وريجي إلى سيد دراسات أمان محل هذا ريسيرجز عن كسمي مجالده أما أي عن سمينين تان حفيز كان جومي قواصون إسلامنا مجالده واحد في عم بيكبدلهم هو ناقصنا نوجه علاج والدراسات كبور تكارا مرضى والله قد جاي سيدا إن توت بارك أما يقول اللي هذا شجر يوحي على حريرة أو دايزين كوكو almost عند ما يستري حل دون العرك دونين مجالده لقى هرجليو بور تكارا مرة قرح بدن ساسو كلو واحد وريجي اسمها جدك بوضة بالبريس لقى باللعبة إلا بورتا كارا مرة أو 40 متر waxaan wareejiyay daraasaadka ee nashqada wadada dhagaxbuur oo laga bilaabay dhawaabeyga wajaale ilaa madaxtooyada oo iyaduna 40 mitir waxaan wareejiyay ilaa laba jid oo kale oo kan FM ta ka kormara oo diisaankiisu dhameystirayay saasoo kale waxaan wareejiyay qorshahagaha magaalada 10 sano lagu hogaaminayo kuwa waxaan islaahay ragga yimiday xafiiska maamulaya rag aqoon karti iyo xigmad fiican u leh weeyaan wayna hirgelin doonaan annaguna waxaan garab taaganahay annagoo shacaba in qorshahaas insha Allah hirgalo aad iyo aad u mahadsantahay